qadiyadiisa waxay gilgishay Mareykanka waxay sababay gaartay in dagaal sukeeyo uu ka qarxo. maxkamadeyntiisa saxaafadda Mareykanka waxay ugu magac dartay maxkamadeyntii qarniga. ugu dambeynna xukunka lagu riday waxa uu la yaab ku noqday shacabka Mareykanka. balse intaan u gudagalin faahfaahinta, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub nagu soo biir, subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararkeen iyo macluumaadkeen ugu dambeeyay. O.J. Simpson waxa uu ka mid ahaa xidigaha kubadda gacanta Mareykanka. waxa uu xilligaas ahaa kooda ugu magac dheer. waxa uu ciyaaraha ka fariistay sanadkii 1979 kadib waxa uu u jihaystay dhanka jiritaanka iyo xayeysiimaha, waxaana uu ku kasbaday xirfadahaas cusub taageero xoogan. O.J. waxa uu guursaday sanadkii 1985 waxaana uu guursaday gabar cadaan ah oo lagu magacaabi jiray Nicole Brown. balse muddo kadib waxaa si aad ah u xumaaday xiriirkooda, waxaana Nicole ay ka sheeganaysay jirdil iyo garaacis uu kula kacay O.J. Simpson. sanado ay iskhilaafsanaayeen kadib, Nicole waxay O.J. ka dalbatay furiin, waxayna u sheegtay ama ku eedeysay markaas in uu jeclaaday haweeney kale, wayna ka tagtay. balse muddo kadib waa ay heshiiyeen caruurtooda dartood. xilli subax ah bishii Juun 1994 xaaladda ayaa aad u sii xumaatay. xilli uu O.J. safar u sii ahaa magaalada Chicago, waxaa la helay meydadka xaaskiisa Nicole iyo nin cadaan ah oo ay si hoose saaxiib ula ahayd. booliska waxay goobta jariimada ka dhacday ka heleen golofis dhiig ku dahaaran. markii la baaray dhiigga DNA-ga, natiijada waxay noqotay in O.J. uu leeyahay, waxaana la amray in la soo xiro. intaas kadib O.J. Simpson waxa uu isku dayay in uu dhanka dibadda uga baxsado Mareykanka, laakiin 2 saacadood oo la raacdaysanayay, isla markaasna ay 9 diyaaradood oo nooca helicopteriska ah dusha sare ka duubayeen howlgalka lagu soo qabanayay, sidoo kalena 95 milyan oo shacabka Mareykanka ka tirsan ay daawanayeen, waa uu isdhiibay waana la qabtay O.J. Simpson intii ay maxkamadeyntiisa socotay waxa uu wajahay dhowr markhaati oo ku eedeynayay in uu ka dambeeyay dilka xaaskiisa iyo saaxiibkeed. balse O.J. ayaa mar walba ku adkeysanayay in uu bari yahay oo uusan dilka geysan. sidoo kale qareenka u doodayay ayaa mar walba soo bandhigayay in O.J. waxa ku dhacay ay ahaayeen jinsi faquuq, waxayna taas sii xoojisay dagaalka u dhexeeyay madowga iyo caddaanka Mareykanka. sidoo kale xaaladda ayaa ka sii dartay markii la soo bandhigay muuqaalka askarigii soo bandhigay tooreyda iyo golofiska dilka lagu geystay oo ku hadaaqaya in uu necab yahay dadka madowga ah. intaas kadib qadiyadda O.J. ayaa dhanka kale isku rogtay, waxaana ku kala qaybsamay shacabka Mareykanka oo u kala baxay caddaan iyo madow. inta badan magaalooyinka Mareykanka wadooyinka waxaa isku soo baxay caddaanka, kuwaasoo dalbanayay in la daldalo O.J. isku dayo la doonayay in xaaladda lagu dejiyo. waxaa qaadiyaasha iyo maxkamadeynta O.J. loo soo xulay shakhsiyaad madow ah si meesha looga saaro shakiga laga qabay garsoorka ee ku aadanaa jinsi faquuqa. maalinkii la soo saarayay go'aanka maxkamadeynta O.J. gaar ahaan sanadkii 1995 Mareykanka waxa uu isku diyaariyay xaalad halis ah. inta badan shacabka Mareykanka maalinkaas wax shaqo ah ma aadin, waxayna soo hor fariisteen shaashadaha TV-yada si ay u ogaadaan natiijada kama dambaysta maxkamadeynta O.J. Simpson, taas oo loogu magac daray maxkamadeyntii qarniga. sidoo kale maalinkaas waxaa si aad ah hoos ugu dhacay 85% ku hadalka taleefanada gudaha Mareykanka. waxaa dib loo dhigay kulamadii Koongareeska Mareykanka. sidoo kale waxaa albaabada la isugu dhuftay shirkadaha iyo goobaha ganacsiga. sidoo kale waxaa si aad ah hoos ugu dhacay 41% suuqa sarifka New York. ka hor inta aan lagu dhawaaqin xukunka ka dhanka ahaa O.J., qareenada difaacayay ayaa dalbaday in uu gashado golofiska dhiigga ku daharnaa ee laga soo helay goobtii lagu dilay xaaskiisa iyo saaxiibkeed. halkaas ayuuna ka bilowday layaabka, maxaa yeelay golofiska waxa uu ka yaraa gacanta O.J. qareenada u doodayay ayaa ka faa'iidaystay fursaddaas, waxayna ku doodeen in uusanba ahayn golofiskiisa balse uu ahaa mid lagu nabayay. sidoo kale waxay shaki geliyeen baaritaankii dheecanka DNA-ga, maxaa yeelay xilligaas waxa uu ahaa tiknoolajiyad casri ah. iyadoo ay dhabanada layaab iyo amakaag la haystaan shacabkii Mareykanka iyo caalamka ka daawanayay, maxkamadda ayaa go'aamisay in O.J. uu yahay bari. wixii maalinkaas ka dambeeyay ilaa iyo maantadan la joogo, qadiyadda O.J. waxay soo jiidatay oo diiradda saaray warbaahinta Mareykanka, waxaana laga sameeyey ilaa 20 filim iyo dhowr musalsal. nala wadaag aragtidaada, ma u aragtaa in O.J. Simpson uu dambiile ahaa ama bari? haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar lana sii wadaag asxaabtaada. mahadsanid.